shirka golaha wadatashiga dhamaystirka arrimaha doorashooyinka ayaa galay maalintiisii labaad. Shirka ayaa maanta looga hadlay qodobo muhiim ah. Madaxda ayaa bilaabay ka doodista qodobada horyaala turxaan bixinta u baahan arrinta doorashooyinka, waxaana laga sameeyay horumar wanaagsan. Ayadoo socon doona birito, shirka ayaa waxaa looga hadli doonaa ajendaha horyaala. Shirka ayaa waxaa ka qayb galaya madaxweynayaasha maamul goboleedyada Soomaaliya. Maamulka gobolka Banaadir uu gudoominayo shirka ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, afhayeenka xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Ibraahim Macalimo ayaa ka hadlay waxa maanta looga hadlay shirka. waxaa soo idlaaday maalintii labaad ee shirka golaha wadatashiga qaran ee Soomaaliyeed ee arrimaha doorashooyinka kaasoo uu shir gudoominayay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble. shirkan oo ay ka qayb galayeen madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya, madaxweynaha Puntland, madaxweynaha Jubbaland, madaxweynaha Galmudug, madaxweynaha Koonfur Galbeed Soomaaliya iyo madaxweynaha Hirshabelle iyo sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa runtii maanta waxa uu ahaa mid yididiilo leh marka la fiiriyo sida madaxda furfurnaanta leh ay uga munaaqashoonayeen arrimaha taagan. runtii waxaa aad maanta loo guda galay ka hadlidda qodobadii humaaga uu ka jiray ee turxaan bixinta u baahnaa la xiriiray ama marka ay timaado arrimaha doorashooyinka. madaxdu si furan ayay maaragtay u bilaabeen inay arrimahaasi ka hadlaan. marka la fiiriyana shirka waxaa la oran karaa aad buu uga horumarsanaa, uga wanaagsanaa marka la barbar dhigo shalay sidii uu ku bilowday. waxaa la isku soo noqon doonaa haddii eedmo shirku way sii socon doonaan. maalinta berri ayaa la isku imaanaya oo madaxdu ay sii wadi doonaan shirkooda. laakiin markaad fiiriso sida hadda ay madaxdu isula jaan qaaday iyo sida ay maaragtay arrimaha muhiimka ah ay u kala qaadanayaan, waxaad moodaa in horumar weyn uu jiro. waxaana la rajaynayaa in ugu dambeyntii natiijo wanaagsan ay shirkan ka soo baxdo. laakiin madaxdu hadda waxa ay xoogga saarayaan in ay maaragtay turxaan bixiyaan oo qodob u qaadaan qodobadii maaragtay horey ay cabashadu ama tabashadu ugu jirtay. waxaana la filayaa marka ay madaxdu isla soo dhameeyaan in warmurtiyeed rasmi uu ka soo bixi doono. kulamada madaxda ayaa u socda sidii ra'iisul wasaare Roble u qorsheeyay oo ku jirto mararka qaar haddii ay muhiim tahay madaxda ballamo gaargaar ah ay sameeyaan si hoos ay u wada hadlaan. ra'iisul wasaare Roble ayaa waxa uu doonayaa in inta suurtagal ah in loo soo koobo qodobada muhiima oo ay madaxda kaga xaajoodaan kalamadooda si xal looga gaaro oo ay u fududaato iyadoo la sameynayo isku tanaasul. ahmiyadda koowaad la siiyo badbaadinta shacabka Soomaaliyeed iyo dalka in uu aado doorasho la isla ogol yahay oo madaxdu ay heshiis ku yihiin. shacabka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka ayaa ka dhowr sugaya shirka waxa ka soo baxa, iyadoo dadka shacabka Soomaaliyeed ay niyada wanaagsan ka qabaan natiijada ka soo baxda, maadaama shirarkan muddo 8 bilood uu soo jiitamayay isfahanka ama iska ogolka doorasho ka dhacda Soomaaliya. weriye Cabdinaasir Maxamed Xaaji Axmed, Dulqaad Media Show, freelance journalist and photographer. weriye madax bannaan